xaflad si heersaraa loo soo agaasimay oo ay xilalka kula kala wareegayeen wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Dr. Sacad Cali Shire iyo wasiirka cusub ee wasaaraddaasi Professor Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon ayaa lagu qabtay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda waxaana ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada madax ka kala socotay hay'adaha dawladda safaaradaha dalka ku yaala shaqaalaweynaha wasaaradda iyo marti sharaf kale waxaana ugu horreynba halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi iyaguna soo dhaweeyay wasiirka cusub dhanka kalena sagootiyay wasiirkii hore ee wasaaraddaasi oo haatan madaxweynaha Soomaaliland maaliyadda waxaan mar labaad idinku soo dhaweynayaa xafladan xil wareejinta aynu u qabanay inaynu ku soo dhaweyno wasiirka cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda arrimaha dibadda Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir waxaan kaloo ku macasalaameynaa uguna mahadnaqaynaa wasiirkeenii hore Dr. Sacad Cali Shire oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu u gartay inuu qabto xilka wasaaradda maaliyadda cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda. ujeedada xafladani waa laba qodob waa soo dhaweyn wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamka Dr. Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon iyo sagootis aynu sagootiyeyno una ducaynayno wasiirkeenii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Sacad Cali Shire. geesta kale waxaa xafladda xil wareejinta ka hadlay wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Dr. Sacad Cali Shire isagoo ka warramay waxyaabihii uu qabsoomay waxaana xusid gaar ah mudan shahada sharaf ay shaqaalaweynaha wasaaraddaasi guddoonsiiyeen wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Sacad Cali Shire. wasaaraddu waxay ka kooban tahay xarunta oo toddoba waaxood leh iyo laba hay-adood hay'adda qurba joogga iyo hay'adda la dagaalanka burcadbadeeda waxay kaloo leedahay 28 wakiil ay ku leedahay 28 waddan oo caalamka ay ku leedahay 28 ka 10 kamid ah xafiisyo waaweyn waxaan u gudbayaa markaas qodobka labaad oo ah maxay wasaaraddu ay ku guuleysatay oo ay qabatay muddadii 3 sanadood ahayd ee aan joogay aniga waxaa la magacaabay bishii Oktoobar 2015 maantana waxa weeye waa November baynu joognaa 2018 waa 3 sanadood oo buura intii joogtay marka su'aashu waxa weeye maxaa la qabtay maxaan soo kordhinay 3 sanadood iyadoo strategic and diplomatic studies waa think tank aan isagana ku soo beerinay isla markaana qabanqaabiye shirar iyo tababaro shaqaalaha u sameeyay waxaanu aad ugu dadaalay sidii tayada shaqaalaha kor loogu qaadi lahaa anu markaan imi wixii ugu horreeyaan sameeyay waxay ahayd waxaan tegay SIC Civil Service Institute-ka waxaan bal noo sameeyay qiimeyn shaqaalahoo dhan gebigiisaba madax iyo minjabal qiimeyn ku sameeyay biloodle iyo qorshe biloodle waxaanu sameynay warbixin 3 biloodla bilaa sanadla in wasaaraddu ay yeelato dadka markaan la kulmo markaan isu geegeeyay 3 sanadood ee soo dhaafay waxaan galay weliba aan dhammaystireen 569 kulan baan galay sidoo kale wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri waxa weeye waxaan u haystaa inaan meel cidla oo maran u imaan waxaan u imay wasaarad dhismaysay muddo 27 sanadood wasaaradda ay u kala dambeeyeen khubaro badan diblomaasiyiin badan waxgarad badan wasiiro iga khibrad badan oo intii waxa xilka si rasmi ah loo kala wareegay wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Dr. Sacad Cali Shire iyo wasiirka cusub ee wasaaraddaasi Professor Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon waxaana munaasabadaasi goobjoog ka ahaa gudoomiyaha komishinka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliland Axmed Jaamac Maxamuud Maxamed Jaamac Mal warbaahinta SBC Hargeysa.